meeqa sana ayaad baranaysaa luqadda Ingiriisiga haddana ma awoodid inaad sameysid hal jumlad oo saxan. Waayo taasi qaladkaaga maahan. Waa laga yaabaa dhalinyarada qaar inay dhigteen ama soo barteen 12 sano oo waxbarasho ah isku jirto primary iyo secondary, 8 sano primary ah iyo 4 sano oo secondary ah, haddana aysan awoodin inay sameeyaan hal jumlad oo English ah oo saxan. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay waa dhalinyarta ama ardayda iskuulaadka laguma baro sidii loo dhisi lahaa jumlad. Waxa lagu baraa grammar iyo cashara caadi ah qofka luqadiisana ama waxna aysan u tareen. Marka muuqaalkan waxaan kugu bari doonaa ama koorskan waxaan kugu bari doonaa sida aad u dhisi lahayd jumlad adigoonan grammar iyo waxba aadan baranin. Waxaan doonayaa 3 eray inaan maanta xoogga saarno. 3 erayna waxay yihiin is, am and a. Sida loo isticmaalaa kasta meesha uu ku habboon yahay ayaan ku baran doonaa. Marka waxaan ku leeyahay haddii aad ku cusubtahay meeshan waxaan ku leeyahay subscribe channelka noo saar, like muuqaalka like garee, muuqaalka bilow ilaa dhammaad dhammayso si aad u fahanteed. So waxaan filaa muuqaalkan kaliya kugu filan in aad is, am and a aad fahanteed. muuqaalka lama baahan doonin insha Allah. Marka waa maxay is, am and a? waxani waa verbs sama doona haddii grammar ahaan oo baran, laakiin sharciga jira, sharciyada isticmaalina maanta. Sharciga koowaad waa am. Am intay gashaa? Am waxay qaadataa I keli ay qaadataa, am meel kale ay gashaa malahan. So am haddaa aragtid I ay qaadataa, marka waxaad dhihi kartaa I am a teacher, waxaan ahay macallin. I am happy, waan faraxsanahay. I am from Kenya, waxaan ka imaaday Kenya. I am going home, waxaan u socdaa guriga. I am sleeping, waan jiifaa. So all of that waxay qaataan oo I waxay qaadataa am. Haddaba waxaan filaa am inaad si fiican u fahantay maanta kadibna aysan ku dhibi doonin. Midda labaad waa is. Is maxay qaadataa? Is waxay qaadataa xarfaan soo socdaan. He ay qaadataa oo loola jeeda asaga, she ayada, it oo asaga ama ayada oo waxaan naf ku jirin ama bini aadanka waxay ka baxsanaan lahaa sida xayawaanada, sida buugaagta, wax walbo aad leedahay bini aadan maahan ayaa loo isticmaalaa is. It loo isticmaalaa iyo waxay qaadataa kale is, this iyo that ay qaadataa. So xarfaha sida meel ku aragtid ma qaataan am, waxay qaataan is. So waxaan ku leeyahay is intaas ay qaadataa. Soo tusaale ahaan marka he is my brother, asaga waa walaalkayga. He asaga is my brother, asaga waa walaalkayga. She is a doctor, ayada waa dhaqtarad. She is a doctor, ayada waa dhaqtarad. It is cold today, maanta waa qabow. Maanta qabow waa marka it is cold today, maanta waa qabow. That is a dog, kaasi waa a. That is a dog, kaasi waa a. This is a car, kani waa gaari. This is a car, kani waa gaari. So waxaan filaa hadeer is inaad si fiican u fahantay iyo am. Midda saddexaad ayaan u gudageli doonaa oona ah a. A maxaa loo isticmaalaa marka? A waxaa loo isticmaalaa waxay qaadataa you, adiga oo loola jeedo adiga, we anaga, they ayaga, iyo waxay qaadataa these kuwani iyo those kuwaasi. Marka hadeer aan aragno ayagoo jumlado ku jiraan. You are a good student, waxaad tahay arday fiican. You are a good student, waxaad tahay arday fiican. We are friends, waxaan nahay saaxiibo. We are friends, waxaan nahay saaxiibo. They are from the USA, waxay kasoo jeedaan USA. They are from the USA. Those are my relatives, kuwaasi waa qaraabadeeda. Those are my relatives, kuwaasi waa qaraabadeeda. These are my friends, kuwani waa saaxiibadeeda. These are my friends, kuwani waa saaxiibadeeda. So haddaba waxaan la soo gaarnay muuqaalkeena qaybta ugu dambeysay. Waxaan rajeynayaa koorskan aan ugu talagalay dhalinyarta in ay ku bartaan sidee jumlad English loo sameeyaa adigoon grammar iyo arrimahaas isku shideynin. This is for part 1. waxaan rajeynayaa insha Allah mustaqbalka in aan muuqaalo badan qaybo badan aan kasoo sameeyo. So insha Allah waan kasoo sameyn doonaa
marka waxaan idin leeyahay muuqaalkiisa intaan ku kulmi doono kheyr ayaan idin rajeynaa. intaanan idinka tegin waxaan idinka rabaa hal mid inaad samaysaan in nin walbo inuu soo qoro jumlad 5 jumlad caadi ah adigoo isticmaalaysa is am an a. soo marka haddii usan channelka subscribe ku ahaan dib waxaa sugaysaa channelka subscribe saaro si aad markasta muuqaal halkan aan kusoo gudbino uu kuu soo gaaro. muuqaalkan la garay asxaabtaadii ama walaalaha jecel inay bartaan Englishka muuqaalkan u share garay oo la wadaag. soo kheyran ku rajeynaa markii